waa qaybtii saddexaad ee taxanaha afmeer iyo qaybihii kale ee shabakadii u horjoogaha u ahaa Faysal Gujis ee dilalka madax jebinta ahaa u qaabilsanaa argagixisada Al-Shabaab waqooyiga magaalada Gaalkacyo. qaybtii hore waxaa sheekadu ku ekay dilaagii isboortiska ahaa, balse qaybtan saddexaad waxa aan ku soo qaadan doonaa sheekada arxalnaawe aan ka absokoyn Faysal Gujis haddiiba uusan ka darnayn aqoon ahaan, diin iyo maadi mid uu ku tooron yahay ma jirto. waa Sahal Cabdullaahi Jaamac oo sanadkii 2008 u argagixisada Al-Shabaab ku soo diray Maxamed Xasan Cawka Jeeri atoorihii 13 sano maskaxda u ahaa dilalka madax jebinta iyo qaraxyada waqooyiga magaalada Gaalkacyo. oraha tirabeelo macno ma keento aan ogaana Sahal iyo waayihiisii xasuuqa bulshada magaalada Gaalkacyo. bismillaahi rahmaani rahiim. anigu waa Sahal Cabdullaahi Maxamed oo ku dhashay magaalada Galmudug oo kuna barbaaray magaalada Gaalkacyo ilaa bacdin ilaa Gaalkacyo. waxbarashadeedu waxbarasho saafka ma galin ilaa waxa quraanka waxoogaa bartay ilaa juska saddexaad ilaa tabaarak ma bartay. laakiin waxa kale waxbarasho kale ma galin oo farta Soomaaliga quraanka ma dhameeyay waxa gaaray ilaa juska saddexaad ilaa tabaarak la gaaraa. diinta kale wali ma saa uma baran wax ku too marana gormaad Al-Shabaab kan noqotay Al-Shabaab waxa ka mid noqday 2008 oo ninkii la yiraahdo Jeeri Amirkeena uu iskiriyay aduu ilaa muddo 5 beriya uu iskirinay kadib iskirintu waqad sidee ku qaaday iskirin waxa ka mid waxay aduu iskirin anagu soo biiday inaa wax kala shaqeystay inaa baak hayaan ku yiri sidii baan la shaqeeyay marka waxaad iga jawaabtaa nin weyn adoo ah 2008 intee sana jirtay waxaan jiray 16 hadda laba jira hadana soddon laba jira way qof shabaab ka mid noqo af Soomaali ma ahan waxa ku aqbasho ku bedelatina Al-Shabaab noqotay adigu tashkiil waxyaalo badan buu noo sheegay inuu lacag badan siinayo kadib markaan ku soo biiranayna oo diliga aan geysanayna inuu lacagiyo uu noo sheegay laga naaquso adigu lacag $1,000 ilaa $2,000 ونو شيء على دل مسبشي على بشي ونو شيء شان قول دور ماي marka gacanta geystaan lacag inta 2,000 baan la siinayaa marka dambana way soo rogay lacageedii yar buu siin jiray markii shaqada shaqada ka baxdaan idinka la diliyay lacagta ma ahana wax kale oo ninkaas ay isticmaalay haday noqon lahayd madiido ama sixir ama wixii la cabsiyo awtano hada marka ay amal oo kale marka auto ila diin oo hawlgalba fulinaysa auto amal wuxuu leeyahay howsha fulinaysa marka abaarka in taago abaar kadib anigu waxaas arkayaa iskoolada qaatay howsha fuliyay wallahi niyo u sameey jiray haddaan baaro maxasto laakiin anoo raalika u dirjay waxa iga su'aala dil markii lagu dhaho qof soo dilbay fulin jiray sax taabadka dil waran la isqax xasan Gujis Jeeri ku waran la caaw ila isqax sida gaar jaakad lagu xiro isqax lagu qaraxa nin qarax loo toobaray in madax jibis loo toobaray kaliya qof ismiidaanaya ka hadlay waxaan toobar weydeen waxaan toobar baa loo soo maraa sagal ma hebel oo caaw baasan qaado or soo qarxi ma waxaan u baahan tahay in tashkiilad hadana si libro kale go'd si loo qof loo dirtay libro kale qofka loo barayaa hadii lagu baran lahaa Jeeri waxa tii anoo xanaaqsan baa u imaanaya wax marka uu imaado horan xanaaq waa ilaaway basolada hore ka qaadanaya Soomaa taabadalkeeda haduu Jeeri jaakad ku xilaa waa isqarxin lahayd Soomaa markaas de toobarkayga ma aha waxaan toobarkayga asaab ii direemay waxaan oo jeedeen asaab ii direemay oo nin u gaara u dirsanaya oo yaqaanaysa aduu hadda waxa tahay nin wariya Soomaa aduu wariya aduu yaado shaqo kala ku haya maanta kicay oo xamaali amala ma ka xamaan leey shaqada barashooyinka ma Soomaa ma taas karo way ururka argagixisada Al-Shabaab waxay mar walba dadka caamada ah u muujiyaan in ay yihiin kuwa u hoggaansan amarada Ilaahay. waxay mar walba iska dhigaan kuwa fisqigu ka xariman yahay, balse taxanaha afmeer ayaa daaha ka faydaya sirta iyo beenta argagixisada Al-Shabaab ay dadka ku maran habaabiyaan. 90% dadka argagixisada Al-Shabaab ka tirsan barnaamijka afmeer waxa uu ogaaday inay yihiin kuwa isticmaala nooc walba oo mukhaadaraad ah ama balwad ah.
waa kan Sahal oo arrintaasi ii makhraati furaya isagoo weliba dhoolla caddaynaya waxaa kaloo uu iiga warramayaa mawjado kale oo sheekadiisa xag jirnimo la xiriira balwad maxaa leedahay balwad ayuu nooc xaqale sigaar koo qaad ee xashad badeecad sadaqataas baashan John Waker kaliya iyo koo iyo kula soo taqaana adigu ma cabto weelata hay sadaqataas waa cabtaa waa ka goorma qalatina shaqada ya goorma qalatina shaqada adigu shambiri 2008 adigu 2007 dhamaadkii 2008 caadi ugu biiray way markii aad shabaab ogolaateen aad noqotid tababar nooceeda lidisay xageesa lidisay tababar uu siiyay asaga qaybtaan wuxuu ii baray biskoolada loordo inkastoo dhinaciisa aad tahay qaybta biskoolada oo lagu barayaa wuxuu lagu tababaray askar magaalada maartay kalkacayo biskoolada si loordo noo baray jeeri biskoolada si loordo baraa maxaa kamid biskoolada nooceed oo ku qaadajay biskoolada caadiga maartay la yiraahdo maartay biljinta iteteeda kuwaas uu noo dhigi jiray kaas uu tagu leeyahay markii labaad adigu marka dhowr bari aan u baasho waday aan labaadii waxa dhalo meel noo saaray dhagax maar budal noo saaray asar loo urfanay dhalad ma ku dhuftay okay way tababarka uga qabtay intee muddo tababarka adigu u booto toomber meelaas aska markaan meesha aska aadayna waxa iska dhigeen dad meelaha mariyo masuul xor aroortooray ma taas wax ka baxno marka meelaha mariyo oo shaqada meel u socdaan waxaan moodiyaan dad banooni ciyaareen moodiyaan oo mashquulin dadka mashquulin xabadaha maalmii dambe ahayd maalmii hore si loo qaadqaadka si loo gashto si qofka loo diliyo oo qaabka loo diliyo buuna baray inta kilomitir oo jirsanaysa intee kilomitir baa lagu talay adigu qofku markaad darabto inuu markaa dhowr qof tihiin oo gacantooda adigu aad leedahay arid gacanta qofka inuu gacantaada ku dhinto waxaa u jirsanaysaa adigu mitro kale inta adigu ijidho kale maarta waa u jirsanaysaa meesha rabtid ama gadaal ama horay mar walba meeshu kaga caddeeyeen marba asagoo meel meherada fadhi u imaanaysaa mood oo dadka inaad wax gaarsiisa lamar waa sida keliya kala laabaxid baa la rabaa hadduu hubaysan yahay meesha waxaa jira wiidaya jira isaga qofka galmaa intaad hoosha galin koor waa niman wiidaa loo dirayaa meesha wiidaasa waxa uga soo jeekimaya uga soo jeekimo okay buu leeyahay hadda hoosha qabsan kadhaan buu leeyahay kadib anaa hoosha qabsan jirna marka tababarka waa ku qaatay tababarka waa biskooltii loo tiimkeena anaga team leader waxaan loo ahaa nin la yiraahdo Faisal kujis loo yaqaan bal yooma team leader loo ahaa amirkeena waa jeeri amirka jeeri ka weyn inuu malbuha laakiin kuwa kale ka sareeyo ma garan karo way ragga teamka yaa xilligaas shabaab kula noqday xilligaas kujis iyo Salman iyo Ibrahim Sidow iyo iyaga gadaal baaayeen rag gadaal baaayeen inta baad nimanka waan leeyahay inta badan isma noqon okay yaa hokay leeyahay hokay jeemka qofku biskool ku soo dilo soo wadno jeeru kan biskool inta ka soo waxaan kala maartay waan leeyahay ciyaalku dib u yimid ciyaalka marka anaga cuslaana ma garanaysaa ciyaalka waxa loo keenay in anaga dilaan ku jeer anaga naga taquluso kadib ciyaalku u shaqaysto أنا مثلاً يا إسلام بيلجي أنت بحث لو كويس نيل راس المال كويس أساق روح تيم لير بواجر كويس واقع نك تيم كلير مكاهبين كهوش اللي أديو نك تيم لير كا بكويس كويس سسمين من الدليل ولا فلان كويس هو الفل أرجع بقول فلان لكن سأمر كهبين بوستاتن رعت إنه تيم لير نوية هذا هبين كي وقال مردارة تيم لير بنوها كيل يجروري سلفر سكنا تيم لير بنوها ويدي tababarkan halkaas aan ugu gudbaynaa waxaad iiga warantaa ninka galqacyada tahay sax aha waalidka iyo familka iyo walaalaha iyo aabaha iyo asxaabta galqacyadka wali qof ka shaqeeyay jira ilaa shaabta ma jirin hadii laga shaqeeyo mar kale soo qoona suma familkeena kulli all qof ka shaqeeyo حتى اللي يجيك الفلوس وقولوا كل شيء عليك والله إنه مرت هوري لما تبغي هوري عرفت الدرهم كذا كذب قف قوري تشكيبوها قف قوري الدنيا هذا ما حسيته هذا ما حسيته لكن سوى سيدا حسيت قف قوري حسب اللي سوق مقالة اللي قاعد تسوي دل قف قوري حسب الرجل وحسب الرعمة جلس وين يقف كمرك الودري ولا معنا ودي ما يو
hebel soo dil lagu dhigay markii aad dil geysataan oo guriga ku soo laabatay maxaa dareentay loo dil kuwa kaliin dil adigu gacantiisa aad leedahay oo markii uu wax soo dishid guriga imaadid hadu loo bari xogaa walba qoonaya magaalada maarta socodka isha maarta iska yareensa laakiin marka loo bari saddex afar joogtay maalin dambe caadi loo qabsanaysaa qofka daga caadiga ah wala mid tahay laakiin markii qofka la dilo ay cad ka dhigaysatid markaas waxa la yahdilay amirka oo maanta hebel yahdilay leedahay cad ka maqleen suulay waxa shaqada ma suulay mid kale jidhay aan ku yiriniyo dadkan aan dilino in jeeri adigu soo amray say ku dareemanaa maxaa ku tiri dadkan aan dilino in dad cad ku yihiin adigu gaar ku ah in kor laga soo amray maxaa ku kala fahmaynaa ku niri suulay waxa ku fahmaysan qof markii la dilo isku markiiba habeenkiiba ama subax kale isku markiiba waa laga jawaabayaa qolada kor jira Facebook-yada soo dhigaya laakiin qofka qof aan dilay WhatsApp kala soo insan aan qoraalka aqoonin dadka waa fahmay marka meher soo fursan maarta qof iska leeyahay telefoon ma wada inta ba telefoon ma qaan jirin qof leeyahay telefoonka noo galbaa leeyahay qofka aan wixii dilay waxa iga su'aala labada bari oo aad tiri marka qof dilno waa walwali jiray oo guriga kama dhaafi jiray soo kaxay aabaha oo kale hal maalin ama hooyada ama walaalaha hooyada way sax okay rajana ku soo kordhiya yaa ku soo koriyay eedada aabaha qabo mise eedada aabaha markii ay yareed wax tacadi meel la gudbin oo eedada la gudbisho oo kale ma la gudbin wax tacadi la gudbin laakiin aniga insan aan iska dawdara diintii waxa maartay aan ka fiican waxbarasho fiican aan helay baa marka aad dil geysatay waa guriga timid oo aad walwal gashay asxaabtaada ama dhalinyarada saaxiibadii ama familkaaga qaraabada dadka guriga kula jooga hal qof oo ku yiri maalmaha waa murugsan tahay maxaa ka timid isoo dagal jiray aan la raadsan hebel baa la dilay ama hebel baa la dilay ayaga meel ka maqli jiray kadib waxa iska dhigi jirnay aan waxba ogeyn yaa la dilay ali jaamad yani sheegay aga maqashan si marka soo bareero amal waadi loo qeybiyay أنا ممكن لما راسن شرين ممكن لما راسن شرين هي البلد لما محل لما راسن شرين هذا هو وايه ولي مترا waxa ka shalayday shaqo inta qabatay ama dil ama hawshan baa ku jirtay wali ma ka shalayday oo ma tirinayo arinta iyada khalad baa ku jirta wali ma ka qabanaysa lorcher haddana aan kula hadlayo baan ku sheegi maayo dawladda Puntland waxa xiranayo waxa soo qabtay 2020 bal soo qabtay bisha 12aad bal soo qabtay magaalada guriga laga soo qabtay fahanta halkan waxa dareemay jeeri markuu ciyaalkan tiimka u qortay markaan dareemnay inuu anaga ma soo socdaan dareen inkasta uslanay fahanta xogaa adigu taagtaagan oo meesha yimid lacagtan inta bal lacagtan ma sii jirin taag baan dareemay in kan anaga noo soo inuu dilo أفكيزا كمان قصة أفضل أكثر لا شقيت حضرين كنا سوا حضرين شخص كلا قدرنا إنه أنا إيش أنا تهانتي إذا وأنا دري إنه أنا إيش سوا وهذا يدخل الدنيا يقولون ساحب أنا أقول بس قاعد مكان لكن أشهد ودي وحوي وحنا كقوة من الصيد اللي استدل اللي يجلسين هذا اللي بمجرى قومي قاسي ما كنت بدي أمس كل ده يبصني وشير وسوق وانا أمس كل ده يبصني قولوا هذا متى وصل لنا يا قبشة الإعلام كان هل بكرة وقبل فريق أنت شباب كنت تسمع كهاليا وشقد الدليل كفرون إنسان ولي أنت أبو أغلى يعني دم وشقي سيسي ما استري ودخل دبق صعدها واسرها تونشر باسره حاول تونشر باسري ما كانوا شند الملاكيستي بس من وحان بكاي والمولانيا حتى إذا أقرنا وجب بالمية المحط أدون كنا سيحرق قليل ومن في مدة باسر الموتى مركز أنا قلوبتي ذاك الله يا وعد كلا لمو ذا واسكتها مقالة اسكتها دور بري لو بري سدح بالله ما صبعه أنا ما عطلي مكين وصوبعه أنا لو راح بوش يعني وعشان يذكر ما واحد ليست أردل
maanta macaa kadib soo waa ii mawdaa oo taga hawsha shacab qabanaysa waa ninkii shalay ku fikrayay in wax dambe sameyn yaa markuu u yimaado anigu faraxsan baan arkay oo iskoolta qabsaday ya jeeri amirkan anigu faraxsan oo wijiga aan ku socday ka bedelan baka taga marka adana tago dilka fuliyo kadib badana qoomayaa argagixisada al-shabaab qaybtooda amniyaadka ee madax jabinta markii ay dhagarta dilal ka sameynayaan waxyaabaha ay ku baxsadaan waxaa ka mid ah buuqa iyo saxmadda bulshada ee xilligaas waxaa taas ka daran aqoon la'aanta ciidamada qaybtood oo fursad u siiya argagixisada dilka geystay in ay baxsadaan iyadoo weliba halka ay wax ku dilayaan ay dhooban yihiin ciidamo kala duwan waxaa taasi ay ku dhacdaa markii dilku uu ka dhaco goob ay ciidamo ka agdhowaayeen ama bar kantarool ay ciidamo ku leeyihiin askartu waxay afarta dhinac u ridaan rasaas tirabeel ah oo aan yool iyo taarget midna lahayn taasi waxay sababtaa in shacabka iyo dhagarqabayaashuba ay cararaan deetana la kala garan waayo dhagarqabaha iyo shacabka waa kan arxalnaawihii jaahilnimadu biyo dhigtay sahal oo iga waramaya sida lagu soo qabtay oo sheekadaasi ay ku jirto waaya sidee lagu soo qabtay niyow garowa joogaaniga waka shaqeynay xaafada beer waxa uu taliya xaafsada bawrtan yarku maartay baqarada alaabta ku dhamartay baqarada maad ku dhismayo sax ayay oo alaabaha guriga dhisi xaafadakiisa heeraysa wada gabar baskar ahayd aan u shaqeyn jiray ma fahamtay halkan ma ka tagay garow ka tagay halkaas oo halkan saan u tagay jeer ma la xiray markii jeer la xiray intaan la xiray koox buu yiri howlgal ma fulisan ani jeer anigu waxaan loo yeeray gujis howlgal bal fuliyaa ma fahamtay jeer wuxuu yiri hadii mar ciyaar kala qabtay ana lagu soo maqan gujiso ciyaar kulu iyo oo joogay kala qabtay wuxuu yiri ciyaar kala qabtay inka labina ugu weyn mood Salman ibn Ajib inka wuxuu yiri ciyaar kala qabtay ana lagu soo maqan gujiso wada awl timlil laha hawshan ada la wareegay lacala hadii aan la qabto ada la wareegay ayir jeeri maalin kadib waxa la qabtay dilkii la sameyn lahaa noo sheegay askariya askarta staff meesha boonta ninka haystay magaciisa ma xasuusto madaxii magaca la jirnay meesha xagee ciyaar soor maarta dadka magaalada la ka dhigto koowaad meesha goomeysta halkaas askar tira badan baa aniga ninka habeenka raaci lahaa baan ka haystay iskooladeena baan qaadanay howlgalka baan aadnay marka howlgalka tagnay askari u baahneen oo qorga garab ku shitay telefoon buu soo dhacay telefoon buu ka hadlay meesha goomeysta dadka magaalada soo aaday meesha goomeysta maarto geed mid ka baxayo halkaas soo istaagay telefoon ku hadlay dhadda gadaal baa u yimid xabad waxa ku sii dhac halka madaxa hal xabo iskoolta dad wax buu jira inaad wax buu xisaabt taal raa xabad ku dhuftay askari aad u dhacay askar taxbadireed aniga luuq soo ugu beegan maartay goomeysta luuq ku beegan maartay baan ku qordo meesha marka waxa yaala biyo ku jiray roob marka daay biyo waxa ku jiray tayr maqan oo inaas guriga meesha ku yaala in waxa laga baqay biyo baabuurta dhiir ka dhigaan muddo ka dhigaan oo baabuurta lagu dhex dhagaxaan muskulada wada dhex soo dhacay biyo gudaheeda markaas waxa ceersanaya magaxida liya maartay shaamacaan bas ugu soo jeeda askartii waxa badariday iyo nima shacab way soo ceersaday tamam abal marka orday askartii shacabku uga hareen ciyaal marka garoon ka soo baxay ima qayna galayeen marka la sheekaro in ka soo baxay inay galayeen ma sheekaro bay dawr dhigtaan ciyaalki qabta marka wax badan marka amreen marka dhan wada dhiir baan abbaar marka orday ba anu daalan ciyaalku ayaan aan kala qaybino inta kala qabaabo meel mugdi ku dhex jiro geediyada agtiisaan taaganahay asla biskood ma tuudhaa askartii tagtay oo ma askar kale ma ku meesho isku ma kuwa kale ba meesho oo wax raadinaysay ba markay dadka arkay xabad soo furay okay bishikay arkay soo furay dadkii mid meel buu yaacay
dadku qaban la askarta ka reebtay ومركز أسكر صدق مالنا العلا أنا هيك ولا والله أسكرت الشعب حبة من الوريدة قف الشعب كم وانا كدي بس حفظت قطعة كاسو زبدني أصلا لو قال سؤال هذه ماشي اللي هذا أرد رويش دمت الله يارو أبغى بس كيف دمت الله قاعد لكن شو تبدأ سكولت كسر لو قاعد شو تعمل وضع ياري كعبة ياري وضع أفرس عملها قاعد ممكن فيت كذا زمان بايد عاد سكشت تلفون النعلة يوم سكشت هلا اللي قلت له ما قد كذا سموس اللي مدعو على النقطة تبدأ ما تعرف كذا بس ما فهمت هذا أنت ما قام شيء ولا تدحرنا كتب كنت ما صوّعي أقول شو هوش كل جواب فلي عتيبي يصدر بس فرطنا بين السعودية سلام هاي هذا وصل أفسنا بين السعودية سلمان أنا ودي وين مكوردي سلمان مكوردي مثلا لو غير كمارتي عيار سوري ولا حمارتي وزارة البيئة بحيل غير كمارتي كذا كلها لغة سكوردي أصلا ما كنت ودي بسي حفظت الدرس اللي بدي كنت بس هو عبر ساعة ملان كيد كيف ساعة ملاس حلو صوت كراضي سكرت من ملاس كأذن حكول عتي أو القلق استر ما كان حلقة أنا لا أقول كنت كانت كوبات قف بدله لا أقول كنت مراه كانت كوبات يموت كانت لو أنا قف جيستا بقول كنت مراه شو عم بقول أنا واحد على كوما يعني نكى أمريكنا بحرين شيرون حرين يا ساس بكورة هيا هو تبدأ موعي عطيت طريق أم بكرة حتى إنه تمر كير الحرين يا هذا الوصول موعي يا سوق عن طريق ارتكته مثلا أقول صاحب سكول ده جاي سكول ده في رتكات سيادة حقول كل قصير كل قصير كل قصير أكبر سيكون كاسين مي العبار مثل اللي ما قمص كود دعوة صواحد حوي اللي مدها في أنتي ما حبوش عني ستيب والكونتون مقان سا ستيب والكونتون مقان سا ستيب والكونتون كم علم ستيب والكونتون قات كذا أظن ميراث مكان حيز أفرس على ميراث أهل صباحني مع 8 ساعة أو قبل نمو قرب نشوف ما كنت نرى يعني بودقاب أنا ما شوي قال 8 ساعة قبل نمو قرب ما شوي بوساس ما شوي قرب أدو كتب حوالله بربار حوالله باري أنا قا اللي مسوي عين أنا ما كمل أبي صلاح أنا شو هذا مكان عن شوي هذا عن شو مكان لو رسول عن شو بيل هذا بيل ما قاس قال بيل إني ملاص يرجع هذا صلاح يوريا وصبح أنا مكان قاعد يسوق الصبح يشغل السورة هذه قارب العشرة سوريا عسكر بحال كويس سي وحسن سي حال سجالس عسكر بقيتين درابة حسن سي لا تكون أنت محاوي سأكون أب مع ما حصلت أقول ما أقول بقول حين سهل بقى بهنا شال ساعين صورة بني مسكوري فرق خطأ أقول من هنا مسكوري حي قبتها مكان واي فرق خطأ أقول أب مكوي عش أرجع وحسن مسكين قاس مسكين شكل مسكت كل دايش مركز رمضان كي خورنا أكو هنا على بوقت على بوقت خورنا دول خورنا ما كان نبغى ولا سيدان سأقول أبكو هروك اللي بلايا وأقول هذا هي الشعب ده ولا ما قام كا وحلي شهر من كل باري وحوالي الودي كذب السنة باري شهر يعني شهر اللي يوم صور من مكان ده مين مشرين ما قام حشداي حشد بتقول سوء بالي صلح عليه وضح أوكي قرواتي وذلك هذا ميشة هذا كان يعمل لنا مودين بس كأمسي سدح بدي أفرق بالمجال شوي طبعا أنت أنا ألعب قاضي ولا ألعب تقولي أوصي ولا بس كاري قرتني بوليس حيوتين كاري يلا بروكس كاري تأوصل قطين سود جيرين قف كارات أودين كاري كشارين سود كاري سليكي هكون يو قولي ما كنت اسمه سعي الله ولا ساري شنقد يا صار الله هكون يو
alaabta marka hore guriga aan geeyo kadib waan soo raacaya ma yadheen aduu waan degay kii askarta watay baan la hadlaa gurniga alaabtan muhiim weeye aniga waan raacaya waan ku yidhi askarta kula socota qayb gaari soo sarban ku yidhi walaalta soo kadib waa soo raacaya aduu cabaar bay askarta waa hadleen 3 askari bagaari la soo saaray alaabtan soo rogay kadib saldhigga la geeyay 3 bilood ku xirnaa maalinta afraad qalab khamiiseed wal soo qaad taalikan saas soo qabtaa waxa la yiraahdo dambiga inaad rabto maxaa sabab u ah dambiga horta niyo qofka dambi waa galaa waana qataa bal dambiga galay aniga waan qarinaya khalaal qoon wax dhibaato koronto miyaan ugu jiray waxa dibadda loo kulmay wax dhibaato way saaxiibadaadii aad xarakada ka wadarsantay shabaab aad wadahaydee cid maqan garanaysaa may dambiga inta ku jira waxa inta ku jira inta meesha joogta xirada fiyan awrta ilaahay ma awrta ani meesha ku jira dawladda meesha in reer Puntland u samaay qof kale oo magaalada dhibaateynaya aan ogahay uu jiro loo wado jiraan ku reey salaad casr ee nabad la gaarin inta fadhiyo la gooyan ku baan jirin aan xasuusanay ma jiraan wax dilal oo masaajid ka geysatay ma tukataa ma sha Allah salaad ma tukataa كانت الصلاة كانت شنطة وقت وأديك إلى تبقى مساجد كل اللي بيجرح وأنا تكتها سداء سكوك قرط هذا الصلاة كالصباحي إن قف إسلام ومسلم والصلاة إلهي مركز واجب إلهي سوقته إن حبنا لها كذا نعم كل شيء قصني هو قف سود من الولايات أما مشاهدة كل شيء أما هلا يعني كل شيء مر والله قف قدام تاجن من أذوق الدلو دياروا سأذوق الدلو تاجن قف اللي عنها لما طفى عنها ما هي قف أذوقهم بشرة هذا ما كان سلمان رعاق ولا كان كل شيء رعاق ولا يبين سيدو بوردي اللي قريه كور اللي قريه أما اللي بنشريه ولا كور اللي قريه لكن عندها سنين ولا أضعنا maxaa ku sababay ka dhamaan qof muslim ah oo salaad ka soo baxay adoo salaad ka soo baxayna dishid والله عقيدة بس ما قد أحسنت هذا عقيدة دولة قتلين لأن سنت الدولة وحوش شقية قاليه دولة وحوش شقية قاليه من سنت هذا مش مكورة مكورة هذا لازم ما يمشي هذا مثلا مكورة أجري دعوة لقول شيء ما تشرعني واحد آية بقى قرآن بقى دليل أما حديث أما نشيدين شيء يدش تشري ويجي ده لكن هذا ما حسيته ويجي ده لكن شيء اللي بيجي هذا أنا قاعد يعطي هذا ده يغرسيد سورة ده آية القرآن يغرسيد أنا قارين هذا دري ويجي ما حسيته كل شيء صح قرآن محاكاة عن نبات كبرتات إلا تبارك تسكت عمّا يتسكت تبارك كليه أنت كم صدق ويجيسيد وكرنا هذا آية هذا حديث إيمرسيد عبارة كده بدنا إيمر حديث كومري إيمري سيد عمر كرم warba waa kan dambeeyay weli ma aragtay qof ku leh dhiigga dadka ayaa maskaxda imidoobeeyay mase maqasho qof inta uu kala garan waayay dadka uu dilay tiro ku qiyaasaya maxay tahay sababta amniyaadka argagixisada al-shabaab ay u yiraahdaan qofka aan dilay ma naqaan magaciisa iyo waxa uu yahay waa kan mar kale sahal manaxihii garashada iyo garaadkaba alla ka arday oo iga waramaya jiriimooyinkii uu ka geystay magaalada Gaalkacyo iyo qaybtii uu ka ahaa dilal oo diisat adu billah hadii xasuustaa dilkan geysay waa dil tira badan aan la saada in kastoo aad maskaxda ku garasa dilkaas waxa iga madoobay dhiig iga madoobay hada shan qof xasuustaa shanta qof maxaa ku dooratay shanta qof soo xasuustaa koob xasuustaa oo reer Gaalkacyo ku yiri bay ku sheegmay ilaahay wana urtay naftayda ka sheegmay inuu bay ku sheegmay fahanta qofkaas waxaan u noqon karaa walaalka in adeerka abtiga adeerka aabaha adwaalka tamilka ku noqon karaa ugu sheegmay agis qofka marka habeenka kula socotay liirka isaga waxa uu shaqsiyan oo ogi hadii lagu sheego maxaa dhacay tadigu dil aabaha soo dilisa waxa galasa absu galmis waxa galasa naxariis qaw ina ka wada ama bay soo daysa ama markii loo soo dil ina la xartido ligeed kulli xartido raadin
hawshan u socday واي شنت دلع حسست المشاك shan dil xasuusto waa nin la yiraahdo Umar Dheere كو iyo nin la yiraahdo wariye la jiray Cabdullah Silfar تسع سنين Cabdullah Silfar afana هاي nin la yiraahdo Ismaan Gududo اسمه بدون بشيء وعبد الله لك شوي Cabdullah la shaqa ninkii la socday oo qori watay baan dilay qorigiis waa qabtay waxa ku tuuray meel balbala قلت سبب الدليل مياه لا يفرق Abdullah Fariha هذول ما حد اسمه بدون ninkii qoriga wataa qori aka baa هي يعني iyo mujahid gulis ka dambeeya xildhibaan koro la jiray xildhibaan Sicilwal سعيد الله xildhibaan Sicilwal ay ku jiraan abay kadib gabadha soo xasuusan insha Allah bilahay جلد ما بيجي واي dilkii kugu maxadinta badnaa oo ilaa hadda maskaxdaada aad ka goyn xasuustaa jisay jira waa kee yiraahdo mareer waa maristaan Umar Dheere maxaa wuxuu kaaga duwanaa dadka kale ee dilaysa kan iyo nin xuska istila dadka magaalada u dhashay waayo ganacsiyaasha magaalada ugu weyn baa haye hon hol qeyr ah wadooyin badan buu sameeyay Soomaa haye ninkani habeenka da ogahay inuu asaga yahay ma aadan oo meeshaan laga direeyo baa ku diidi lahaa ya أنت مركب ماشي تري يبان شيء زي وكانك مركب كوت شو زي مدري كذا مركب عن أنت مركب الغدرية هذه كده أنا ما أدري على هذه كده مركب سوق عيد الفاس قاقي إنه وش كذا سيد الفاس ده كان مجال الصبح ساتكي كمرت البوك مقلاد مية تمام عشت حالي سلام أوكي عفوا سلام سلام قصة بحي بالي وكانك إيش أنقع كسي من عمري عارك جيسان في دي بس لو إن بلس عثمان يبدأ أنت بسكولكم مقنع ونيك فورت كبر ما قام حرني أنت بس زوج عايز كوسا لو ضحى بقرفت كده وعرب bal markaana kaala ii raaca qaar ka mid a goobihii uu dilalka ka geystay oo afmeer uu la wadaagaya sidii goobahaasi ay wax uga dhaceen waxaase si wada jira idinkaga raaligelinayaa haddii kaamirada muuqaalka goobuhu ay dhaqdhaqaaq samaynayaan inaad raalli naga ahaataan halkan waa masjidka salaama ee xaafadda horumar ee magaalada gaalkacyo waxaa hadda ka hor lagu dilay allah u naxariistee nin ganacsada ah oo muctarif ka ah bulshada reer gaalkacyo allah u naxariistee Umar Dheere waa tahay sahal hawlgalkaas u dhacay ila wadaag hawlgalka u dhacay habeen baad jaadka waxa ku jiray jeero ku jiray xilligee baa intee saac maqribka laga baxshin waa tahay saas baad soo baxay badaa ku dhuftay jeero jaad ku jiray aniga Salmaan iyo Limaan Siido wahan yaa sahan kala ahaa jeeri oo jaad waaya gacanta koowaad yaa lahaa gacanta labaadna Salmaan waxba ku ridaa lahaa weedayuhu uu ahaa weedayaha hubiyaha meydku Ibrahim Siido xagee taagnaa marxuum كبير حرني ما فوري مسوا سوتشيد سلام وضع استاغي ها صاحب ضغط هي نكاس وحو هنكي تر وكنح مرة ثانية حقه uga dhacay inta madaxa waata xabadaha ayaa ku rufday Salmaan Ibrahim Siidona weedayu ahaa hubiyaha meedka miyuu ahaa soo weedaya Ibrahim Siido waa hubiyaha ahaa weedayuhuna wuxuu ahaa Cherry waa tahay waa masaajidka salaama ee xaafadda horumar waxa sidaad maqlayseen lagu dilay allah u naxariistee hadda ka hor nin ganacsada ah sidoo kalena ahaa maarayihii shirkadda biyaha Soomaaliya shirkadda Somtel ee magaalada Gaalkacyo Umar Dheere halkan waa hotelka Daarusalaam ee Xeer Daraawish meheradaas waxa la yiraahdaa Shilaabo waxa halkan hadda ka hor lagu dilay allah u naxariistee wariye Silfar haye gacanta koowaad yaa lahaa haye xagee ka timid waa gartay marxuum Silfar xagee buu fadhiyay muxuu sameeyay marka xabada ku dhufanisay telefoonku mashquulsanaa haye yaa ku weheliyay gacanta labaad yaa lahaa okay intee xabba ku dhufatay xagee uga dhufatay okay waa Xeer Daraawish hotelka Daarusalaam allah u naxariistee waxa lagu dilay wariye Silfar oo kamid ahaa bahda saxafiyiinta ee magaalada Gaalkacyo okay dad baa eheladooda leysay umad baa carruur baa uga kacay adigay saaxiibada maxaa ka codsaneen qaraabadii dadka aad ehelkooda leysay horta niyo nafta ilaahay baa sameystay hadda aan kula hadlayo
كل كان دقناي حطينا نبت كجاري إلى وقت ورايا ما في الأول مرة ببيعزا فهمت دير نقول أشيل بلي لما قافنا أشيل جودي بعد ما تيجي الله الله أول حرست أنت لما تيجي أنت النور بحط طبقة وسالة أيق عفس سنة دي عفنيا هدي له قصص سوارك هدي له قصص واحد يفعل ورأس ديك بيجتي هذا تعالى ثنا اللي قصصه سبحان دولد بلا دولد حق سنة يعني دولد يعني هذا وده تضرب هذا مش عم بشيء مثل مريا سنة مسلحات الشهادة الوجه الشهادة هذا لحب الولد بنتشوها ما فهمت هذا واحد عدي مثلا هذا وسيلة هذا قف دل جيستي مركو لا يورا قف كم إنه ما يرى لا يا سما إنه جوز وجه ده سما ورا قف كم ربحك الأمور فتوات سنة تبع عادي يا عمل وقف عمل am ulir oo balbaad hal ugu dhufto waajida aan dawladda intaas dib ugu marko waan waxa geystay ka soo saarday ya qoraal iga qodo oka dawladda bidna afsa wadsanaya di afs ifinayso hal arrin baan waxaan ku weydiiyo dadka carruurtooda maanta shabaabku ay ku maqan yihiin inay shabaabka ka dhigaan iyo dhalinyarada adigoo kala ah ee maanta ku fikiraysa in al-shabaab noqoto si dilal u geysato ma jirta wax fariinaad maanta u leeyahay أنا على لانيو هذا عفان قبطان هذا لا عفان بنسي يا إنك هذا كفكر إنه الشباب نقطه وإنه قف في الآن وشاكر صباح الدنيا وضمعه هذه لها فرح قال وارد كانوا عم يقول لنا وارد الميسا كور هيا وهي هاي سار عبد الله محمد أدب ما صنتهاي بحرجينا دولة عدالة كيش إن شاء الله intaas ayaan ku ekeenayaa sheekadii dilaa Sahal Cabdullaahi Jaamac oo ka tirsanaa argagixisada al-shabaab qaybtooda amniyaadka qaybna ka ah dilalkii iyo xasuuqii ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo kuwaas oo bilowday 2008 qaybta xigta waxa aan ku soo qaadan doonaa laba nin oo kala ah Idris iyo Salmaan oo Sahal iyo Gujis la group ahaa oo iyaguna ka tirsanaa shabakada horjoogaha u ahaa Faysal Gujis deetana waxaan si toos ah u abaari doonaa oo qaybaha ugu horeeya ku soo qaadan doona sidoo kale horjooga Cabdulqaadir Axmed Umal madaxii ka sareeyay atoorihii dilalka Gaalkacyo Jeeri afmeer fashilka argagixisada al-shabaab